oo ciise wuxuu u baxay xagga buurta oo habeenkii oo dhan ilaah ku baryayay oo markuu waagu baryay wuxuu salaamay 12 nin oo ku magacaabay rasuulo Simon oo ku magacaabay Butros iyo Andrews walaalkiis Yaqoob Yohana Filipos iyo Bartolomos Matthias Thomas Yaqoob ina Alfayos iyo Simon oo la oran jiray Qirole iyo Judas ina Yaqoob iyo Judas Iscariot oo ahaa gacan geliyaha waxa barakadaysan masaakiintiina waayo boqortooyada Ilaahay idinka leh waxa barakadaysan kuwiina gaajaysan waayo waad dargi doontaan waxa barakadaysan kuwiina barooranaya waayo waad qosli doontaan waxa barakadaysan kuwiina marka ay dadku nacaan oo diidaan oo caayaan oo yiraahdaan sharbaad leedihiin wiilkaadana hadaraadi ku faraxsanaada marka ay taasidu ku dhacdo oo farxad la ciyaara waayo hadiyad weyn baa idinku diyaariyay xagga jannada waayo iyaga uu yaashad waxa ay sidan oo kale ku sameeyeen nabiyaasha intaasoo kaliya ayaan hayaa waxaad ula jeedaa intaasoo kaliya ayaan sidee idinku daran tahay kuwiina maalqabeenka ah iminka waxaan soo maray nolol fudud isagu ma doonaayo inuu taajir noqdo wuu waalan yahay sidee kugu xun tahay adiga qosliya waayo waad murugan doontaa maxay ku xun tahay marka dadku wanaag ka sheegaan waayo awooyaashood ayaa waxa oo kale ka sheegay nabiyaashii beenta ahaa laakiin waxaan kuu sheegayaa adiga imaqlaya jeclow cadowgaaga wanaag u sameeya kuwa idin neceb u duceeya kuwa idin habaara oo u tukada kuwa aan idin aaminin haddii qof kaa dharbaaxo hal dhaban kan kalena u du oo haddii uu qof korkaaga kaa qaato shaarkaagana ugu dar sii kii wax kaa baryaa oo haddii qof uu ka qaato waxaad leedahay ha weyddiisani waxaas mar kale u qaba dadkaa kale waxaad jeclaan lahayd inay iyaguna kuu qabtaan haddii aad jeclaataan kuwa idin jecel oo keliya maxaydin barako u helaysaan xitaa dambiilayaashu way jecel yihiin kuwa iyaga jecel haddii aad wanaag u samaysaan kuwa wanaag idiin sameeyaa idinku maxaad u helaysaan barako xitaa dambiilayaashu sidaas way yeelaan sidee buu u taaban karaa iyada sidee buu iyada ula hali karaa hawl qasri
maya jeclaada cadowgiinna oo wanaag u sameeya iyaga idinkoo aan malaysan abaalgud oo waxaad lahaan doontaan abaalgud weyn oo waxaad noqon doontaan wiilasha ilaha ugu sarreeya waayo isagu waa u fiican yahay kuwa abaallawayaasha iyo kuwa sharka naxariista sida aabbihiinba u naxariis badan yahay badbaadi ciisow ha eedaynina dadka si aan laydiin eedayn ha nacladina dadka si aan laydiin nacladin cafiya idinna waa laydin cafin doonaa jidka nagu hoggaami rabbiyow siiya idinna waa laydin siin doonaa waayo intaasaad bixiseen qiyaas leeg ayaad heli doontaan nin indhala mid kale ma hoggaamin karo haddii uu sidaasi sameeyo labaduba waxay ku dhacayaan bohol maxaad saxarka yar ee isha walaalkaa ku jira u aragtaa laakiin aanad u arkaynin dugabka weyn ee ishaada ku jira na hoggaami sayidow iminkanan ku baahanay rabbiyow faraxsanayda hooyadii ku dhashay ay ku barbaarisay waxaase si faraxsan kuwa ereyga ilaah maqla oo adeeca waxaan jeclahay ninkan inaan ogaado ma u malaynaysaa inuu yahay masiixa farrisigan wuxuu ciise ku marti qaaday casho sharaf oo ciise ayaa gurigiisa tegey oo u fadhiistay cashadii ka soo baxa carruur yahay oo baxa may maqasheen baxa carruurtu mar walba waa sidaas iyagu waxba ma adeecaan maxay iidu halkan kahaysaa ma garanayo maxay meesha ka qabanaysaa